بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عند وضيال مل باجوبتان يسوى البوموق يديسو قارة يبا كسو دوادا برامج قارة إنو قلت لقلناي تيفيقا عالمي قا إصاب أي نكورة سندونا مد كمدا مشرحين تا أوترتما يحيل كمدحتنما دولة قبلات كهير شبالله واللغو مقعبا عبد الرحمن حسين عدو بل مدنا مشرح كسو دواو ان تيفيقا عالمي قا ساب تيفي أديقو أكور بحنايا إن حالة هذا جود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وما سنتي بعد الصحافة قارهان تيفي قصاب. ده حالة جود مال في عم بمريسا كان بين ما صعدا جبوا مريا بري وحلو درير دونا حل بانو درير دونا عود بحنتي قفك عود كيسي الله سين لها مركا حال كل كاسو مريا إن شاء الله وحن رجينا يقول. waxaad naga siisaa warbixin taariikh nololeedkaada oo kooban taariikh nololeedkaygu waxa weeye aniga waxaan ku dhashay gobolka Hiiraan qaasatan magaalada Beledweyne tuula 15 kilomitir u jirta oo Hiiraan bacad la yiraahdo oo koonfurta ka xigta Beledweyne barashadeedii hoose asaasiga ahayd waxaan ku qaatay Muqdisho kadib dawladdii dhexe ayaa burburtay waxaan ka mid ahaa dadkii dibadaha aaday wadanka Norway wax ka soo bartay ilaa heer jaamacadeed kambaniyaal kala duwan ka soo shaqeeyay sidoo kale waxaan ka soo shaqeeyay arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada ceelasha biyaha heshiisiinta taariikhdooda kooban waa sidaas waxaa tahay musharax hadda u taagan xilka qabashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana ku jirtaa 8 musharax ee u taagan bal maxaa kugu dhaliyay in aad isku soo taagto xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxay ugu dhaliyay wadankeena muddo dheer fowda ka jirtay waxaana loo baahan yahay meesha hadda la joogo in hore looga socdo waxaan ku sheegay waxaan ahaa qof ka soo shaqeeya arrimaha bulshada haday ahaan lahayday dadka qurba jooga oo isku xiritaankooda haday ahaan lahayday in wadanka Soomaaliya guud ahaan lagu celiyo wixii loo qaban karo isla markaasna si qaas ah waxaan uga soo shaqeeyay Hirshabelle anagoo isbitaallo tiro badan dayactirnay kuwa dhisnay kuwa hadda maanta shaqeynaya gacanta ku hayna sidoo kale iskuulaan dhisnay iskuulaan dayactirnay sidoo kale ceelal biyo ayaan meelaha oonleyda baadiyaha ka qodnay marka arrimaha bulshada wax badan ka soo qabanay taasaan ugu dhalisay in systemka oo la dhaxgalo oo noqon karo intan qabanay wax ka badan la qaban karo musharaxiin badan baa hadda soo taagay oo musharax walba aan khudbadiisa dhageysanay oo ballan qaad ah uu sameeyay adiga wax ku qorsheysan hadii aad ku guuleysato xilka madaxtinimo bal faahfaahinka naga sii waxyaabo noo qorsheysan shalay khudbadeennii ku jirtay manifest baan qaybinay oo buugaag ah manifestkaas waxaa ku qoran siyaasadda Hirshabelle ay noqon doonto haddii aan ku guuleysano hogaamiyaha Hirshabelle waxaa nooga asaasan waxyaabo tiro badan amnigana wax ka qabano cadaaladana wax ka qabano shaqo abuur ina sameyno dhaqaale sameyno kaabayaasha dhaqaalaha ina soo celino wadooyinka oo jajaban ina dayactirno kuwa kale oo cusubna ina dhisno waxaan doonaynaa magaalada Jowhar inaan ku xirno badda kaga xirno cadale halkaas oo dekad ka sameey doono waxaan rabnaa Jowhar in Muqdisho ku xirno waxaan rabnaa Jowhar inaan ku xirno waqooyiga Soomaaliya waxaan rabnaa Jowhar inaan ku xirno wadanka Itoobiya xuduudkiisa feerfeer waxa halkaas oo tafsiir ayay u baahan tahay tafsiirkaas muxuu seen badda ugu xireenaa waxaan ugu xireenaa wadanka soo qaadayna cadale oo keenayna Jowhar waxa dayactirayna wadada halbowlaha oo ah Soomaaliya taasoo maaragtay xamar ilaa inta naga qusayso aan ka dayactiri doono Soomaalida inteeda kale tan ku dhiirigelin doono inta kale in dayactiraan waxaan sameeynaa wada ayaan ku xireenaa feerfeer halkaas oo doonayna 90 milyan ee Itoobiya oo bad haysan inaan rabno inay isticmaalaan dekada cadale taasoo u maray doono dawladda federaalka aan doonayno in halkaas dhaqaale tiro badan oo Hirshabelle ka soo galo iyo guud ahaan dawladda federaalka ah taasoo u isticmaali doono caafimaadka dibudhiska amniyeynta cadaaladda shaqo abuur marka waxaan isleenahay barnaamijka siyaasadda idin diyaarsan hadoo aan lahay amni caafimaad waxbarasho kaabayaasha dhaqaalaha soo sheegnay waxaan doonaynaa warshadihii gobollada ka jiray in dib u soo celino sidii warshada sokorta sidii warshada balcad oo dib aan u furayno waxaan rabnaa meesha la yiraahdo degmada Warshiq inaan ka furno warshad kalluun taasoo aan doonaynaa kalluunka in dadka Soomaaliyeed uga faa'iideyno dibadana u dhoofino waxaan rabnaa beeraha inaan wax ka qabano oo dadka beeraleyda aan dhiirigelino inay beeraha ay tabcadaan
kana caawino qalabka beeraha ka caawino daawada cayayaanka isla markaasna aan suuq aan u sameeyno u ibgeeyaan oo dalkii dibadda ah waxa kale oo ka ilaalin doonaa hay'adaha mucaawanada bixiya sida WFP inay ku soo aadiyaan mucaawanooyinkeeda xilliga dalagga sidoo kale waxaan sameynaynaa ka hortagga abaaraha ka hortagga masiibooyinka sida biyo baxada waxaan doonaynaa dowlad goboleedka ama maamulka dowladda inaan hoos u dejino oon gaarsiino heer tuulo heer baadiyo waxaan rabnaa dowladda federaalka wasaaradaheeda kala duwan inay xafiisyo ka furtaan dhammaan degmooyinka Soomaaliya sidoo kale waxaan rabnaa inaan garoomo aan hirgelino oo ka hirgelino waaweyn oo caalami ah sida garoonka diyaaradaha oo beledweyne ka hirgelinayno waxaan ka hirgelinaynaa Jowhar waxaan ka hirgelinaynaa Buulaburte waxaan furaynaa iskuulo farsamo kuwaas oo ku soo saari doono dad farsamo yaqaaniin ah oo shaqo abuur aan ku sameey doono iskuuladaas farsamada waxaa noo qorshaysan inaan ka dhisno Balcad inaan ka dhisno Jowhar inaan ka dhisno Buulaburte inaan ka dhisno Beledweyne barnaamijkeena siyaasadeed waa qaabkaas sidoo kale waxyaabaha noo qorshaysan waxaa ka mid ah magaalada Buulaburte inaan ka furno warshad shamiitada samaysa waan gartay fursad asagoo ku siinayo TV-ga caalamiga ee SAB waxaa jira mas'uuliyiinta madaxda markii ay raadinayaan xilal ballanqaadyo badan ay sameeyaan ayaa jira markii ay ku guuleystaan xilalka ballanqaadyadii ay noqdaan hal bacaad lagu lisay bal ka waran waa wax dhici kara horena waa u dhacday anagu taas waa ka duwanahay anagu rabitaanka shacabkan ku nimid dadkan halkan tartamayaahu way kala duwan yihiin qaar fikir ayagu u goonihay wataan qaar qolo kale fikirkooda xambaarsan yihiin anaga laba fikir baan wadanaa mid shacabku ka yimid oo taan kaaga soo sheekeeyay arrimaha bulshada baahiyaha ka jira taas oo ka soo baxday in systemka la galaa inay wax ka bedeli karto fikradda shacabka ka timid in wax la bedeli karo fikir kale oo aniga aan wataa jira kaas oo ah rabitaanka inaan hogaamiye ka noqdo goboladan anigoo isbedel baa keeni kartaa siyaasadda saddex nooc baa loo galaa aragtida aan ka fahamsanahay qofku inuu dhaqaale doon yahay qofku inuu magac doon yahay iyo qofku isbedel doon inuu yahay aniga isbedel doon baan ahay marka waxaan isleeyahay waxyaabaha aan ku hadlayo waa waxyaabo aan daraaseeyay way dhici kartaa inaan gaari weyno oo anagoo gaarin weli aan dhimano way dhici kartaa anagoo gaarin qaybo ka mid ah in waqtigu naga dhamaado laakiin waxaa xaqiiqo ah inaan arrimahaas aan bilaabi doono oo cidda naga dambeysa ay heli doonto system iyo nidaam ay wax ku sii bilowdo waan gartay waxaa jira musharaxiin ama mas'uuliyiin markii ay xil raadinayaan sidaan horey kuugu sheegayba haddii ay noqoto cuuriyaan haddii ay noqoto mid camoolo ah haddii ay noqoto shacab caadi iska socda waa ay qaabilaan laakiin shacabka inta badan waxay eedeemo dusha kaga tuuraan mas'uuliyiinta ugu sarsaraysa markii ay xil qabtaan in albaabadooda laga celiyo taasina maxaa kaaga qorshaysan taas maanta waxay u taallaa xildhibaanada sharaf kale Hirshabeelle in go'aanka noocaas ay qaataan way jirtaa hadda dad badan oo musharaxiin oo maanta ayagu ruuxooda hadda shacabka aysan gaari karin oo la heli karin oo ama amisom waardiinayso ama ciidamo kale oo ay waardiinayaan oo aad u adag tahay in la helo marka qofka noocaas oo berri haddii uu ku soo baxo in wadankan ama Hirshabeelle oo madaxweyne ka noqdo in la helo waa adag tahay anigoo arkaysa hadda ciidamo waardiinayo oo hareerahayga taagan ma jiro shacabka waa gaaray waxaan tagay isbitaalada waxaan tagay dadka baan dhex maray suuqyadan dhex socda dadka baan dhageysanaya la tashanaya ra'yigooda baan weydiinaya marka shacabka waxa laga doonayaa in xildhibaanada ay la soo hadlaan ku dhiirigeliyaan qofka berri heli karaan inay doortaan marka aniga waxaan ballan qaaday hadii la doorto in shacabka aan ka dhex bixi doonin sidan hadda ugu dhex jirno ugu dhex jiri doono marka shacabka ay u taallaa ama xildhibaanada ay u taallaa inay go'aan ay ka gaaraan qofka u furfurnaan kara oo ummadda ku dhex noolaan kara oo la heli kara marka loo baahdo waan gartay ugu dambeyn rajada aad qabto maadaama ay 8 musharax ay u tartamayso xilkaani la rajeynayo 16 bishan maalinta sabtiga ay ku beegan tahay in ay ka dhacdo magaalada Jowhar doorasho kalsoonida aad qabto bal ilaa intee la eg tahay aad bay kalsoonideedu ay u fiican tahay aad baan rajadeedu u wanaagsan tahay horta xukunka ilaahay baa bixiya haddii dadkoo dhan ay kula rabaan oosan ilaahay oosan kula rabin horta lama helayo taasna qof islaam ay ka dhaadhacsan tahay baan ahay laakiin waxaan aaminsanahay shaqada aan qabanay rabitaanka shacabka la kulanka xildhibaanada iyo doodaha aan wadaagnay waxaan rajaynayaa maaragtay inaan aan guuleysan doono hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan dardaaran yar aan bixiyo midna aan shacabka reer Hirshabeelle aan siiyo midna aan siiyo xildhibaanada sharaf kale oo berri wax dooranaya shacabku waxaan u sheegayaa inay xildhibaanadooda la hadlaan
xildhibaanku deegaan buu matalayaa wuxuu matalayaa dad buu matalayaa marka in ay la hadlaan waa muhiim una sheegaan cidda ay markaasi u arkaan inay masiirka ummaddan Soomaaliyeed guud ahaan ama gaar ahaan degan Hirshabelle ay lagu aamini karo shacabka waxa laga rabaa arrintaas inay dhiirigelin u sameeyaan xildhibaanka markaas ay ku jirto dilemma ama xaggaad aada shacabka taladooda ayuu go'aan ku qaadan karaa taas waa qodobka labaad oo aan doonayo inaan xildhibaanada u sheego waxay tahay biri oo sabti ah oo taariikhdu 16 ay tahay fursad bay haystaan fursadaas maaragtay ha ugu heliyaan shacabka reer Hirshabelle shacabka Soomaaliyeed xildhibaanada ruuxooda ha iskugu heliyaan ha u heliyaan qofka isleeyihiin waxba uu soo kordhin karaa biri qaladkay galaan maalinta ku xigto oo axad ah oo taariikhdu 17 tahay ma sixi karaan marka maanta waqti ay go'aan ku gaaraan qaladaadka ay ku saxaan bay haystaan marka xildhibaanadana taas ayaan isleeyahay inaan kula dardaarmo guud ahaanna waxaan u rajaynayaa reer Hirshabelle ilaahay inuu soo saaro qofkan ummadan dhibaataysan dhibka ka saari kara ku xiri kara shacabka kale oo Soomaaliyeed ku xiri kara adduunka dacaladiisa marka dardaarankii halkaas baan ku soo koobaya sidoo kale tan waa u mahad celinayaa TV-ga SAB iyo dhammaan saxaafadda arrimahan gacan ka geysatay guud ahaan waxaan jeclahay inaan intaasi ku soo gabagabeeyo barnaamij gaar ah idinku talagalnay TV-ga caalamiga ee SAB ay toddobaadkan idinku wareysanayeen mid ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka qabashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka Hirshabelle barnaamijka waxaa soo saaray anigoo ah Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Qalfa isla aniga ayaa idin la socodsiinayay inta barnaamij xeeg la kulmeen waxa idin leeyahay amaana Allah aad baad mahadsantahay